السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي أدو مهسنتين ومركي لبعض أمانته هودا أن كوكولانو muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago howlgallada ciidamada ICE ay toddobaadkii labaad ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis ayaa waxaa lagu qabqabtay dad aad u fara badan oo Soomaali ay ku jirto hadda ciidamada ICE waxay sheegeen in dad 20 qof ka badan ay xireen iyadoo waliba howlgalka toddobaadkii labaad uu socdo shalay waxaa la arkayay iyagoo maqaaxiyo iyo sidoo kalena xaafadda Cedar Riverside galayay waxay ciidamada ay sheegeen 70% dadka ay xireen inay yihiin dad dambiye leh gudoomiyaha gobolka Tim Wallis ayaa sidoo kale waxa uu waraaq u diray wasiirka amniga gudaha Christine Oom oo wasaaradeeda ay ciidamada ICE hoos yimaadaan waxaana uu sheegay in ay bal faahfaahin ka soo bixiso iyo sharaxaad dadka ilaa iyo hadda la xiray oo waliba dad sharci leh ay ku jiraan muuqaalkan marka waxaan rabaa inaan idin kula wadaago shalay ayaa xaafadda Cedar Riverside ee Minneapolis ku taala waxaa laga qabtay wiil Soomaali ah oo muwaadin Maraykan ah isla markaana dhalashada Maraykanka haysto wiilkaasi magaciisa Mubashir ayuu ku soo koobay waa 20 jir waxaana shalay isagoo shaqadiisa inta ka soo baxay maqaaxi ka soo qaday isdhahaya ayay ciidamadu qabteen waliba baraf ayaa Minneapolis ka da'ayay sida muuqaalkan aad ka aragtaan waa ay wuxuu yiri qoor sagaara ayay ugu qabteen jilbaha ayay dhulka ii dhigeen waana ijeebeeyeen isagoo waliba ku qaylinayay war muwaadin Maraykan ayaan ahay sidaas darteed wuxuu yiri saacad markii ay gaari igu hayeen ciidamada ICE afka ayaa u duuban gawaarida ay wataana waa gawaari oo shacab camal ah markaas kadib wuxuu yiri Bloomington ayay geeyeen saacada ayay haysteen markaas kadib ayay xaqiijiyeen inaan muwaadin ahay isla markaana way soo daayeen waliba wuxuu yiri qabow daranna waa uu da'ayay isla markaana sida ay ila dhaqmeen ma ahan sida loola dhaqmo muwaadiniinta Maraykanka maanta marka ayaa shir jaraa'id waxay si wada jira u wada qabteen Mubashir in maayarka ama duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo taliyaha booliska Minneapolis Brian O'Hare waxaana uu ka warbixiyay sidii ay wax ugu dhaceen iyadoo waliba markii wareysigaasi uu dhamaaday kadib wariyaasha Soomaalida oo Mubashir oo luqadda Soomaaliga aan aad u aqoonin ay su'aalo weydiiyeen isla markaana isagoo English iyo Soomaali ku hadlayay ayaa bal waxa uu ka warbixiyay qaabka loo xiray iyo sidoo kalena markii la soo daayay iyo sida ay ciidamada ICE ay ula dhaqmeen My name is Mubashir. Shalay waxa joojiyay ICE waxaan soo baxay shaqada I came downstairs to get some food Markaan waxay joojiyeen ICE agent ima weydiin wax su'aalo no questions no nothing Markii ran at me wuu joojiyay macala he pushed me against the wall hold you pushed me markaan he handcuffed me waxa dhahay I'm a US citizen I have my ID on my phone let me go markaan wuxuu dhahay we don't care markaan dibadda ii bixiyeen dragged me through the snow markaan ninka wuu i pushday markaan wuxuu geliyay chokehold cunuu yahay markaan he put me inside the car waxa dhahay I have my passport mala saaxiib wuxuu hayay my picture of my passport he was showing him through the car waxay dhahay we don't care about that I told him okay he said waxa taqaana picture so I told him man waxa misamay I could give you my name my date of birth and I have my passport on my phone can I show you but they said no they turned off my phone they turned off the location but waxay deen all the way in Bloomington my first waxay hayeen in Cedar which way in like 1 hour how we hayeen for no reason let me show you my passport waxay like we don't care how saacay hayeen but we went all the way to they took me to Bloomington finally but in Bloomington when we arrived they made me step outside it was snowing and I told them can I go outside I'm cold they said no we have to stain your face so I let them stain my face because I was cold ma dagaalantay adiga markay ku qabanayeen because dhulkay kugu jiidayeen macnaha dagaal bilaabay raftay mise say ku jiideen isku iska jiideen well I was handcuffed more handcuffed but they just pushed me for no reason waxay ahayd about 2 p.m. malaha waxay weyn waa Cedar ani bes wanaha waxa doonay cunto nimanka koobtay intee bay ahaayeen waxay ahayd 3 markii ugu rasmi ah wala waxba nothing more than ICE stop waxa mo he came at me wuu soo baxsay wuu i pushed for no reason
wax su'aala nothing macala ma oyn ice nothing markii kugu horeysay miya aad la kulantid ice it was my first time ever how long waxay ahayn like 2 to 3 hours I would ani bas inu haa iyo meesha waxa ka buuxa kuwa matataani alaabaha wala I don't know me macala if you see the video I'm not doing nothing. They did that to me because I'm Somali. They see that I'm different than anybody else because I'm handcuffed. I can't do nothing. I have my ID. I'm a US citizen. But they just push me to the ground for no reason. Yeah. Hello, ha. Me waxa la hadlay Maxamed Nuur. So we shade doona. ila dhigti markii lagu geeyay ilaa hadda maxaa dareemaysaa Wallahi I feel hurt. I feel targeted. I don't even feel safe. I don't even feel safe outside because I'm in Somalia, and even though I'm a U.S. citizen, they could do this to anyone else. Asah maaha. waxaa jira dhalinyaro sidaada oo kale ah oo shaqaysta school aada ay daawadeen videohii adigoo citizen ah runtii cunaha lagu qabtay oo lagu jir dilaayay maxay tahay fariinta aad u diri lahayd dadka adigoo kale ku daawanayo oo dhalashada Maraykaanka haysta Well, like there's nothing to really do. I was a U.S. citizen. I told them I'm a U.S. citizen. I have my passport. It's on my phone. If they're doing this to me, I feel like no one else is safe. I'm a U.S. citizen. They can do this to anyone else. No one is going to stop them, even if you're undocumented or anything. waalidkaaga ka waran markii ay ku arkeen sida lagu galay maxay dareemeen Wallahi way naxeen. They try and find me. They want to waxay tahay downtown facility, waxay tahay downtown jail, waxay tahay St. Paul. I got finally waxay in Bloomington. This whole time no one knew that I got detained. Wax ku yaala afsar shaqaya sidad. Me? Me cunta socday. The way waxaa joogay like less than 10 seconds. maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isaguna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu sheegay muuqaalka dadka ayaa loo shiday goobta joogay wariyaasha markii la xirayay Mubashir waxa uu yiri muuqaalka aad daawateen waa Mubashir isla markaana ah muwaadin Maraykan ah waxana uu sheegay in noloshiisa inta badanba uu ku noolaa Maraykanka sidaas darteed waxa uu yiri shalay ciidamada ICE ayaa jilbaha dhulka u dhigay waana jeebeeyeen xabsi ayayna geeyeen iyadoo wax sababa aysan jirin arintaasina waxay xadgudub ku tahay sharciyada iyo waliba dastuurka Maraykanka qof wada iska socdo in loo xiro waxaad u egtahay Soomaali ayaad u egtahay arintaas waxa uu yiri waa mid sharci darro ah waxa uu na sheegay in arintaasi qof kasta oo Maraykan ah ay ku dhici karto waxa uu yiri haddii aad dimuqraadi tahay iyo haddii aad Republican tahayba arintan waxa uu yiri arin lagu farxo ma ahan sidaas darteed waxa uu sheegay in arintan sidoo kale aasaasayashii Maraykanka iyo sidoo kalena dadka u ololeeya cadaaladda arintan waxa loo baahan yahay waxa la joogaa waxa uu yiri xilligii aan istaagi lahayn isla markaana aan hadli lahayn waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan su'aal iska basic ah oo caadi aan weydiiyo qof kasta oo muwaadin Maraykan ah waxana aan ka doonayaa jawaab caadi ah ma tahay qof muwaadin ah oo Maraykan ah haddii aad tahay waxa Mubashir ku dhacay adigana waa kugu dhici karaan oo Mubashir kama duwanid ayuu yiri maayarka magaalada Minneapolis waxana sidoo kale uu sheegay in ciidamadan ICE ay xadgudub ay sameynayaan sidaas darteed amarka sare oo la soo siiyay uu yahay taga Minneapolis dadka sharci darrada ah ee Soomaalida soo xirxira arintaasina waxa uu yiri arin macquul ma ahan waa una ka digay waxa una sheegay in arintaasi ciidamada ICE iyaga nafsadahantooda waxa ay qabanayaanba aysan ogeyn haddaba maayarka magaalada Minneapolis oo shirka jaraa'id oo wiilka shalay ICE ay xireen Mubashir iyo ay joogeen taliyaha booliska Brian O'Hare isagoo ka hadlayay waxa uu yiri What you very clearly saw in that video was Mubashir, an American citizen, someone who has been here nearly his entire life, tackled, handcuffed,
taken into custody for no reason at all, in clear violation of law and the Constitution of the United States, for simply walking down the street and looking like he's Somali. This should make every single person in America, whether you are a Democrat or Republican, livid. For those that believe in the work of the founding fathers, for those that believe in the maintenance and endurance of our republic, for those that want to stand up for justice, now's the time to be speaking out. Because I've got one basic question for everybody who's watching, and I'm looking for one basic answer. Are you an American citizen? If you are an American citizen, you yourself may be in the crosshairs of this administration, because in that sense, you're no different than Mubashir. This is a person that was leaving for his lunch break. This was a person who was out on the street doing literally nothing wrong. And what we saw by these ICE agents that clearly did not know what they were doing was violence, an unwillingness to hear the simple truth, which he was repeating again and again, which is, I'm an American citizen. Those were the words that he was saying again and again. Those words, if nothing else, should give them a minute of pause so that they could find out, hey, who are you? What's your name? Are you a citizen or not? Have you done literally anything wrong at all other than existing in the world? The answer is, of course, no. And the reason we're here right now is, I believe, some directives were given from pretty high up that just can't be carried out. Directives like, I want you to go to Minneapolis and target the Somali community and deport a bunch of illegal or undocumented immigrants. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waarwadin la sida iyo nabadgelyo